Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Walaalayaal kusoo dhawaada janalkeena Macruuf Somali Media. Taariikhda dalalka Islaamka qeybta labaad. Maanta waxaan ku eegi doonaa taariikhda dalka Cumaan. Dalka Cumaan waxa uu dhacaa koonfurta bariga dhexe jasiiradda. Baaxadda dalka waxaa lagu qiyaasaa 309.55 km². Taariikhda dadkeedana waxaa lagu qiyaasaa 2,845,000. Magaciisa oo dhammaystiran waxaa la yiraahdaa Sultaan Qaasim bin Saciid. 40 sano ka badan ayuu dalkaasi xukumayay. Cumaan waxaa sultaanka ayaa doortay wasiiro muddo 40 sano ku dhowaad ayuu xukumayay. Waddankan ayaa dimuqraadiyad qaatay 1990kii. Suldaan Cabdilxamiid ayaa markii uu xukunka aabihiis ka dishay kadib dalkaasi u oggolaaday in ay soo doortaan shacabka xildhibaanada, wuxuuna ku tiirsan yahay shidaal aan sidaas u sii badnayn, wuxuuna u janjeeraa dhanka reer galbeedka. Halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.